waxay ahayd xilli aan ka shaqaynayay isbitaal ku yaala dalka Jabaan. Isbitaalkaas dadka badanaa waxa ay dhihi jireen waa isbitaal aad u fiican maadaama ay joogeen doctorro amaba dad ku fiican qalliinka. Waxaasoo idil aniga maanan arki jirin. Waxaan ahaa mid aad u jecel shaqadeeda, aadna u xanaaneysa dadka bukaanka ah. Shaqadeeduna waxa ay ahayd nurse amaba ilaalinta. Waxaa jirtay dhacdooyin aan aad ula yaabay oo dhacay 8 bil ka hor. Waxaa jirtay gabar meesha nagu soo booqatay amaba bukaan ku ahayd oona ii sheegtay inay aragtay naag ay la yaabtay. Waxayna ku dhahay xageed ku aragtay, waxayna ii tilmaamtay meel ay dahyo saarnaayeen amaba qaybaha kale. Waxayna ii sheegtay naagtaas inay timo dhaadheereed oo aysan wejigeeda arkin. Anigii waan soo baxay qolkii ayaan daaha ka qaaday, misena qofna maba joogin boqolkaas. Waan la yaabay, waxaan isdhawa waxyaabo qaar oo ay istustay waa murugada iyo waxyaabahaas i ka keentay. Balse waxaa kasii darneed markii ay dhowr qof oo bukaano ah ay ii sheegeen. Bukaanadaasoo ahaa dhammaantood kuwa aan aniga dabiibaya amaba aan aniga neers u ahaa. Waxaana ka mid ahayd waayeeshan oo ii sheegtay iyadana in ay aragtay xalayto naag ka cabsiisay wadatana dhar gudguduudan. Sidoo kalena ay samaysay waxyaabo ay aad ula yaabtay, sida inay qoorteeda ku dhejisay derbiga amaba ay koor ku dhejisay. Anigii waan yaabay, sidaasay macquul ku tahay. Saacaddii ayaan fiiriyey, waxaana arkay inay tahay 2 oo habeennimo. Waxaan dhahay xilligan aad ayaad u daalan tahay, iska yara fadhiiso maadaama dadkii oo dhan ay jiifteen. Waxaana bilaabay inaan akhriyo joornaal maalinkaas la keenay oo aan aad u xiiseynayay. Joornaalkii markii aan akhrinayay kaliya 15 daqiiqo waan caajisay. Waxaana dareemay inaan aad u hurdaysanahay. Markiiba sariirta ayaan koray, waana iska seexday maadaama aysan jirin howl markaas ii taalay. Waxaana dareemay inuu qof meesha maray. Waan soo fadhiistay. yaa waaye ayaan dhahay. Meesha haddaan fiiriyo waa cidlo, cidna ma joogto, waa bilaa buuq, way degan tahay. yaa jooga meeshaan? qosol ayaan maqlay. arrinta aad ayay igu soo cuslaatay maadaama ay waxyaabo badan maskaxdayda ku qufulan yihiin. albaabka waxa uu xirnaa sidii aan aniga u xiray markii horeeto oo si fiican ayuu u xirnaa. waxaana dhahay eeduma adiga. waxaana u wacay islaantii meesha aan ku dabiibayo oo xanuunsanayd. waxaana isdhahay iyadii ayaa soo kacday. tooshka ayaan soo shitay, waxaana soo aaday dhankii. waxaana arkay wax aad iiga cabsiiyey. waxaana arkay naag qabta dhar gudguduudan, wejigeeduna uu yahay mid aad looga cabsoodo. afkeedana uu labada dhinac kala xigo oo aad u afweyn tahay. waan naxay. maxaa tahay ayaan dhahay. masana isla markiiba waxaa isoo wacday hooyaday. ayaan maxaa xilligan ku soo jeediya ayaan ku dhahay. waxayna u dhahday xageed joogtaa? waxay dhahday hooyaniga caadi aan ahay, waxaana joogaa isbitaalka. laakiin maxaa kugu dhacay? see tahay iska waran? caadi ma tahayna? waxaana ku dhahay hooy haa caadi aan ahay, waan fiicanahay. laakiin maxaad ii weydiinaysaa su'aalahan? waad ogtahay inay caawiya xilligayga tahay. waxayna ku dhahday hooy riya xun ayaan arkay, taasoo iga cabsiisay. waxaana arkay naag dhar guduudan qabto, sidoo kalena aad u timo dhaadheer, afkeedana uu aad u weyn yahay oo adiga kula joogto amaba adiga ku cabsiinayso, wax ku samaynayso. markiiba taleefankii ayaa go'ay, bisoo naxdin dareetay taleefankii ayaa iga dhacay. gadaal ayaan amar soo fiiriyey, misna naagtii maba joogto, cidna ma joogto, meeshii waa cidlo. waxaana dhahay yaa tahay, maxaa rabtaa, maxaad soo doontay iyo su'aalo dhowr ah oo aan maskaxdayda weydiinaya ayaan qofkii weydiiyey. taleefankayga ayaa markale soo dhacay. waxayna ahayd hooyaday. waxaana isdhahay soo qabta taleefanka. misna haddii aan geeskayga fiiriyey, waxaan arkay wax aad iiga nixiyey oo waxaana arkay lugihii naagtee. kor ayaan soo fiiriyey, misna cidna maba joogto. arrintu waa isbeddeshay. naxdinta ayaa ugu tiro badatay. waxaana ku sigtay inaan bistaaga ka dhaco naxdin daraaddeed. gadaashii ayaan ku laabtay, misna lugihii sidii ayayba u yaalaan. waxaasoo dhan waxaa ka sii darneyd markii aan arkay inuu qofkaas lugihiisa bilaabay inuu wareejiyo. aniga waa aad ayaan u naxsanahay, cabsida ayaa igu siyaaday.
lugtaayo dhinac wareejinaysay ilaa dhinaca kaleeto sida wax yani la wareejin karo oo kaleeto. anigii waa yaabanahay, waan naxsanahay. 100 shay ayaa isku kaydarsantay, walwal, naxdin, stress. wax aan sameeyey ma lahan oo maba aqaani. hal mar ayaanba waxaan ka war helay wejigeedii uu xamal isoo fiirinayo una soo ordayo sida maskii oo kaleeto. wax walba xilligaas waa ay isbedeleen. waxaana bilaabay inaan naxo oo aan qayliyo, aan cararo. markii hore maanan qaylinaynin, manaanan cararaynin. waxaana isku dayay inaan waxaan waxa uu yahay ogaado, balse markaan sheekada waa ay igu caddaatay. waana naxay, waana cararay. intii aan cararahay, intaan albaabka gaarin ayaan kufay oo dhulka ayaanba ku dhacay. mana aana awoodin inaan kaco maadaama aan qabay kaba aad u dhaadheer. kor haddii aan soo fiiriyey, waxaan arkay naagtii oo samaynayso waxyaaba aad iga sii yaabiyey. waxay ahayd mid qoorteeda iska siibtay, qoorteedana ay bannaanka iska wareegayso. anigii xilligaas kadib waan suuxay, waxaana ka war helay anigoo isbitaal dhex jiifo. maalinkaas kadib isbitaalkii dib ugumaanan laabanin. hooyadii ayaana waxa ay ii sheegtay inay dadkan Jabaan degan ay aaminsan yihiin inay jirto ruuxaan soo laabato taasoo jecel inay aargoosato. waxayna markasta jeceshahay inay cabto dhiigga dadka. balse waxaan isweydiiyey maxay taas sababtay adiga iyo dadka meestooyadin cafiyeen. waxaana isdhahay waxaa laga yaabaa inay caajistay ayna rabtay inay idinkeedid la ciyaarto. halkaas ayayna ku ekeyd sheekadeeda. aad ay u mahadsantahay saaxiib haddii aad xilligan amaba intaan nala soo gaartay. waxaan kaa codsanaynaa haddii aad nagu cusubtahay inaad nagu soo biirto adigoo taabanaya subscribe. sidoo kalena videoga inaad like saarto haddii aad horey subscribe saartay videoga like tag kareem.